cilmiga fasiraadda riyooyinka buugaag badan iyo afaf badan ayaa laga qoray jirtoo haddana aan afkeenna cidi hore aysan waxba uga qorin inta aan xog ku hayo taas ayaana ah sababta ugu weyn ee buuggan waad riyootay runtu waa maxay oo u qoray qoraagu sida uu ilaahay u abuuray soo jeedka ayuu hurdadana u abuuray arrimo ayuu ilaahay qofka ku tusaa hurdadiisa si iyagoo dhacdooyin ah uu ugu arko soo jeedka arrinta ugu weyn ee riyooyinku ay faa'iideynayaan ayaa ah in dadka loo sheego waxyaabaha ay uga baahan yihiin nolol maalmeedkooda gaar ahaan nebiyada dhimashadoodii kadib maxaa yeelay waxyigii baa istaagay sida xadiiskii Bukhaari iyo Muslim ay soo wariyeen ee nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ku yidhi haddii wakhti aakhirku soo dhowaado qofka muslimka riyadiisu maba beenowdo diinta islaamkuna waa diin xaq ah oo caqiido fiican haddaba waa kuma qoraaga buuggu se xaguu wax ku soo bartay xaguu ku soo barbaaray Dr. Sheekh Siciid Maxamed Faarax Jire waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa isagoo ku barbaaray waxbarashadii aasaasiga ahaydna ka bilaabay dalka Sacuudiga halka uu ku dhamaystay dugsigii hoose dhexe ilaa sare heerka koowaad ee aqoonta sare ee jaamacadda waxa uu ku qaatay dalka Masar isagoo diyaariyay aqoonta beeraha ee afka qalaad loogu yaqaano agriculture jaamacadda ku taala dalka Masar magaalada Al-Iskandariya heerkiisii labaad ee master waxa uu ku soo qaatay dalka Suudaan magaalada Umudurmaan isagoo diyaariyay shareecada iyo sharciga masterta labaad waxa uu ku diyaariyay dalka Ingiriiska isagoo diyaariyay Islamic Education kuna diyaariyay magaalada Gloucestershire heerka saddexaad ee PhD-da waxa uu ku diyaariyay dalka Lubnaan magaalada Beirut haddaba haddaynu intaa ku soo koobno taariikhda qoraagu waa maxay riyada waxa lagu micneeyaa haddii la qeexayo fasiraado kala gedisan balse dhiganaheennan waxa aynu ku soo qaadanaynaa qeexitaan kooban oo ku saabsan riyada iyo waxa ay tahay riyadu waa silsilado isku xidhiidhsan oo khiyaali u badan kana dhacda hurdada dhexdeeda halka marmar ay tahay wax aan isku xidhiidhsanayn run iyo waxyaabo badan oo qayrul macquul ahna laga heli karo waxa uu yidhi Sigmund Freud riyadu waa wado qofka baahiyihiisu ku daboolo waxyaabaha aanu gaari karin ee nolol maalmeedka caadiga ah sida ruux doonaya inuu noqdo maalqabeen ama doonaya inuu guursado gabadh aanu dhaqaale u hayn ayaa uu ku riyoonayaa arrimihii oo sidii uu rabay u dhacay sidoo kale ruux shaqaale ah oo uu dhibay maamulkiisa ayaa ku riyoonaya inuu iska celiyo maamulihiisa halka Alfred Adler uu yidhi riyadu waa arrin hurdada dhexdeeda ka dhacda oo qofku kaga hortagayo mustaqbal halka culimo kale ay aaminsan yihiin in ay riyadu tahay dhacdooyin kala gedisan oo qofku inta uu hurdo u ilaalinaysa inuu hurdada ka toosin dadkii cilmiga u banbaxay waxa ay heleen qoraallo dhagxaan lagu qoray oo taariikh ahaan ka soo jeeda xadaaradii qadiimiga ahayd ee Sumer halka Giriigu ay leeyihiin riyadu waa hibo ilaahyadu bixiyaan oo bani aadamku macluumaad cusub ka baranayo haddaba maxaynu ugu soo qaadanay buuggan barnaamijkan waxa inoo qorshaysan in aan buuggan ka bilaabi doono taxane aad kula socon doontaan qayb buuggan haddii Alla inoo suurtageliyo insha Allah